madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo muddooyinkii u dambeeyay gobolada bariga Soomaaliland ku mareeyay safar ugu kuurgalayo xaaladda abaareed ee ka taagan gobolada bariga Soomaaliland dib ugu soo noqday magaalada Burco isagoo soo maray gobolada Sool iyo Sanaag iyo Saraar madaxweynaha Soomaaliland ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco waxaana duleedka bari ee magaalada Burco kaga hortagay maamulka gobolka degmada mas'uuliyiin iyo arday iyo shacabka tiro badan oo dhamaantoodba erayo kalgacayl ku qaabilayay madaxweynaha Soomaaliland oo ku soo guriyo noqday magaalada Burco isla markaana caawa u hooyan doona magaalada waftiga madaxweynaha iyo socdaalkiisa iyo deegaanada ay soo mareen iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen ayaa waxa ka warbixiyay hafayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Deer waxaana hadaladiisii kamid ahaa madaxweynuhu ujeedada safarkiisa waxay ahayd inuu xaqiiqo dhaba saamaynta abaaruhu ku yeesheen gobolada bariga Soomaaliland bulshada dad iyo dunyaba si uu helo ayuu madaxweynuhu safarkiisa wuxuu ka bilaabay oo uu ku hakaday magaalada Berbera guud ahaan 25 meelood ayuu madaxweynuhu ama uu istaagay oo uu xog wareys ummadda la yeeshay ama uu seexday habeennimadii wuxuu madaxweynuhu ugu horeysay gobolka Saaxil Berbera Sheekh Burco gobolka Daadmareerna wuxuu tagay Ceelsame Oodweyne Xaaxi gobolka Togdheer Shanshacade Taalabuur Baleecalanle Baleydhiig Coodanle Qorilugud Wadaamago Caynaba gobolka Saraar Caynaba Oog gobolka Sool Yagoori Laascaanood Xudun waxa kale oo madaxweynuhu tagay Bohol Ceelafweyn Ceerigaabo Gar-adag War-Idaad Xayira iyo caawa oo uu Burco ku soo hoyday guud ahaan madaxweynuhu meel kastoo istaagaba iyo markastoo uu magaranayso ummadda la kulmaba wuxuu weydiinayay saamaynta abaartu intay leeg tahay bulshada tabashadeeda sidii loo gaarsiin lahaa gargaar degdega ha noqoto baad ama biyo ama guud ahaanba ummaddu magaranaysa inuu la dareen qaybsado waxa iyadna aan jecelahay in hoosta ka xariiqo guddi wasiir ah ayaa waxay madaxweynaha kaga hadheen magaalada Ceerigaabo kuwaas oo kala bixi doona guud ahaanba gobolka Sanaag iyo gobolka Saraar si ay u gaarsiiyaan ummadda caawimo iyo taakuladii ay ugu talagashay xukuumadda Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad muqbaahiyaha caalamiga Somali News magaalada Burco.